asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta intusi doonaa haddii aan laydmo haddii ay igu timaado cilad noocan ah ama this site ahead contains a harmful programs hadduu soo saaro ciladaas sidee lagu xalin karaa ayaa arday badan soo weydiinaysaa. waxaad tegaysaan saddexa dhibcood ee ku yaala chromeka geeskiisa u shisheeya, kadibna waxaad sii tegaysaan meesha ay ku taalo settings ayaa dooranaysaan, settings baad dooranaysaan, kadibna waxaad sii tegaysaan meesha ay ku taalo halkan privacy and security ayaa gelaysaan, meesha ay ku taalo privacy and security. marka halka gashaan waxaad sii gelaysaan bartan ay ku taalo more ayaa ku dhufanaysaan more, kadibna tigta ayaad ka qaadaysaan ka ugu soo horeeya. tigta markaa ka qaadaan bes waxaad ku noqonaysaan website-kii uu diidayay chromeku get into pc oo kale. markaa kusoo laabataan waka caadi buu usoo gelayaa. markii horena haddii tigta loo daayo haddii tigta iminka loo daayo oo aan refresh garayno wuu diidayaa ma ogola, laakiin markaynu tigta ka qaadno oo aynu refresh garayno iminka si fiican u eega wuu ka baxayaa. marka haddii ciladaas ay kugu timaado iminka iska baro, faa'iiday kuu tahay, wuu kaa saarmayaa. marka aad ba ugu mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum.